bismillahi raxmaan raxiim. Waxaa inoo martiya walaalaha ka mida oo mowduuc runtii aad loogu baahan yahay u gudagalay oo research ku sameeyey oo mowduuca Soomaalidu iyo bini'aadinka intiisa badan buu ku cusub yahay real estate la yiraahdo. Markuu horeyso walaalkan iskiin baraya Yunis kuma tahay. bismillah alxamdulillah suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahumma salli calaa nabiyina Muhammad wa calaa aalihi wasaxbihi wasallam. magacayga oo saddexan waa Yunis Xuseen Maxamed. dadka iyo saaxiibada waxay yaqaaniin Yunis Gaabane waa family name. Gaabane waxa la dhihi jiray awogay Allah u naxariisto. waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho inkastoo bariyaha magaalada Muqdisho dadka dhan ay leeyihiin waa lagu dhashay. sidoo kale waxaan ku barbaaray isla magaalada Muqdisho inkastoo gobolada Soomaaliya inta badan aan tagay. waxbarashadeedii dugsi hoose dhexe sare iyo jaamacadaba waxaan ku dhameeyay isla magaalada Muqdisho. runtii haddana waxaa ii dhiman tasaha waxaan dhigtaa oo ii dhamaan rabtaba jaamacadda Fudin International University magaalada Dhaka waddanka Bangladesh. Yunis aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan leed u soo koobtay ee noogu soo qaadaa dhigtay information-kaaga. walaal waxaan nagu taagan hadda oo aan doonaynaa inaan wax ka ogaano real estate-keena wax noogu iftiimisid sideska aad doonaysid inaad ka istaagtid waddankan joogno real estate-ka sida u yaqaanaan iyo Soomaaliya sida loo yaqaano waxyaalaha badan inaad noo iftiimisid bar real estate aa wax noogu beeqaamisid. marka horeyso maadadan real estate runtii waa discipline cusub oo ku soo kordhay filliga waxbarashada. waxaana asalkiisa keenay United States of America oo halkaas ku imaaday. wuxuuna ka imaaday markii la fahmo real estate-ka ayaa waxa la fahmi karaa real estate muxuu yahay iyo sidoo kale real estate-ka shaqada uu qabto markii la ogaado ayaa waxa la ogaan karaa real estate wuxuu yahay. real estate wuxuu ka kooban yahay two syllables ama laba weerood oo isku dhagan waa real iyo estate. real marka macnaheedu waxa waaye reality uu ka imaaday reality laakiin reality-ga runtahay ma ahan. reality meesha markii la taagan waxa loola jeedaa hantida permanentiga ee joogtada ay dhulku ku dhagan oo dhulku uu ku ka yahay oo aan dhaqdhaqaaqaynin ayaa reality loola jeedaa. waana oo dhulku ugu horeeyo yani oonan gurguurin ayaa reality loola jeedaa meesha markii la joogo oo reality runta erayga runta ah maahan. sidoo kale state waxa loola jeedaa person's owns ama qofku wuxuu leeyahay ayaa reality loola jeedaa markii isku dhagaan macna ka soo baxay oo ah in Soomaali markii aan ku dayno waa maamulka iyo horumarinta iyo maalgelinta hantida maguurtada dhulka ugu horeeyo maamulkeeda iyo horumarinteeda hantidaas maguurtada ayaa waxa la yiraahdaa real estate. marka Soomaaliya markii la joogo runtii qofka markuusan aqoonin wuxuu ku leeyahay real estate oo hantida maguurtada la horumarinayo oo dhulka la horumarinayo marka shaqadii dalaalinta ama dalaaleyda qabanayeen oo cilmi laga dhigo Soomaaliya ma ansaas. runtii real estate waa horumarintaas iyo maalgelintaas mataqaana lacag lagu maalgelinayo dhulkii iyo shaqadii dhulka la horumarinayo oo beeraha ugu horeeyaan oo mataqaana macdintii dhulka ku jirto hoosteeda ugu horeeyaan dhismihii ugu horeeyaan ayaa waxa la yiraahdaa real estate halkaas ku imaado. marka mowduuca aad u xiiso badan yahay research-ka sameysay walaal waxaan rabay dadka kula istaagay wixii ka saaciday wax kugu dhaliya xataa hadaad wax noo iftiimin kareyso bal. runtii waxaa inta ugu badan igala qayb qaadanaya barnaamijkan documentary-ga oo aan kusoo bandhigaya baxthigii la sameeyay ama research-kii la sameeyay real estate business in Soomaaliya. jaamacadda kuwa laga qayb qaadanaysa sidoo kale saaxiibo Soomaaliya ay igala qayb qaadanayaan iyo shirkado. sidoo kale waxaan mahad celinayaa wariyaasha Soomaaliyeed inta u badan oo ayagana balan qaadeen in ay barahooda bulshada iyo website-yadooda iyo telefishinada ay ku baahin doonaan ayagana insha Allah waa u mahad celinayaa. inahaas oo dhan ayaa mataqaana igala qayb qaadanaya. waxaan ku dari lahaa real estate markii la fasirayo cilmi ahaan wuxuu ku fiican yahay in lagu daro real estate-ka productive uu soo saaro ama alaabta uu soo saaro maxay tahay. real estate engineer Ibrahim aad u mahadsan wuxuu soo saaraa engineerska productigooda oo adinka ku ka tihiin engineerada ay ku ka yihiin. productive engineering waa taqaanaa dhulkii iyo dhismihiisii. waxaan dhahnaa anaga productigeena waa civil engineering product oo civil engineering ayaa productiga soo saaraan ayaga mataqaan machine-ka ah ayaa productigooda marka wuxuu yahay
waa mataqaanaa apartmentskii iyo falaadkii inay mataqaanaa dhisaan guryihii residentialka inay dhisaan real product marka inkastoo aan prestige-keena dib ugu dhigi doono laakiin 3 product ayuu ku kooban yahay sidiisa weynba product waxaa la yiraahdaa residential product ama residential products oo ah deegaan oo condominiumskii deegaaneen si fiican oo condominiumskii iyo mataqaanaa in la dhiso guryo mataqaanaa uniform ah tusaale magaaladan cusub hadda magaalada Muqdisho laga dhisaayo mataqaanaa waxay yihiin residential building yes sidoo kale productiga labaad soo saarno weyn waxa waaye ay soo saaraan civil engineering anagna product noo ah commercial products oo ah commercial products waxa waaye moolalkii iyo suuqyadii iyo mataqaanaa waaye maaha residential deegaan maaha sidoo kale products saddexaad arbina ku dar waxa waaye industrial product oo ah mataqaanaa in la dhiso factorieski iyo warshadihii iyo mataqaanaa in maalgelin loo sameeyo mataqaanaa ayaga la dhiso saddexda product ugu waaweyn real estate-ka waxyaabay soo saaraan prestation-kaaga iyo research-ka aad samaysay walaal xilimeed ku aadan yahay inaad soo saarto oo banaanka u soo bixiso oo dadka tusto oo macaankiisa u dhadhan siiso runtii hadda waxaa ku jirnaa face-kii ugu dambeeyay ama last face wajigi ugu dambeeyay ee soo saarista insha Allah buugu wuxuu u baahan yahay in mataqaan rag badan ay saxiix badan ay u baahan yahay runtii laakiin waxaan jeclahay inaan soo hormaro barnaamijka documentary-ga oo aan soo saarno ilaa idinkiisa bishan Maarso ee hadda nagu soo aadan 2016 dhexdeeda bisha Maarso dhexdeeda 20keeda meelahaas inaan ku aadino soo saarisiis insha Allah oo hadda dabayaaqo ayuu sii maraya insha Allah aad baad u mahadsan tahay walaal Yunis waxaan igala qayb qaadanay barnaamijka anigoo ah Ibrahim Maxamed Umar runtii waxaan sugnaaba hadda waxa weeyaan productiga iyo research-ka la sameeyay walaal Yunis sameeyay waxaan sugnaaba insha Allah kaabuu noqon doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته